ku soo dhowaada ducadan qiimaha badan waxayna gaar u tahay haweenka ama dumarka doonaya mustaqbalka wanaagsan iyo inay helaan nin wanaagsan oo xuquuqdooda iyo qiimahooda ka soo baxa. raalliga ahow ducadani waa af Soomaali, koobiyeyso kuna ducayso, rabbina ku bari. waqtiyo fadli badan baad ku jirtaaye waxaad tiraahdaa, ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaad igu irsaaqdid khayr wixii aan ka mutaystay dhinaca guurka iyo mustaqbalka aan filayo, guurkaasoo ehelkaygiiyo anigaba ku qancinaysid, aniga iyo ehelkaygana asaga aad ku qancinaysid. rabbiyo waxaan doonayaa inaan guursado ee waxaad ii qadartaa ragga kuwa ugu dhowrista badan, yacni ugu dhowrsanaanta badan, ugu fadli badan, ugu irsaaqada wanaagsan, ugu barakada weyn. allihii midka awoodda badan u sakhiray midka daciifka ah, shaydaanka iyo jinka dabaylaha u sahlay nebi sulaymaan, shimbiraha iyo birahaba u sahlay nebi daawuud, naartii u sahlay ama dabkii nebi ibraahim. ilaah waxaana ii sahashaa nin wanaagsan oo adiga kaa cabsanaya, xuquuqdaydana ilaalinaya. awooddaada iyo xeeladaada rabbiyow arrintaa igu sii. waad awooddaa keliga adigoo ah, laakiin anigu ma awood. alla deeq badan ayaa tahay. waxaa tahay kii bilaabay abuurista samaawaadka iyo dhulalka. ilaahuw ii qor khayr dhammaantiis, iina sahal. waxaad tidhahdaa, ilaahuw ii guuri, xalaashaadana igu kaafi oo xaaraamtaada igaga ilaali. yaa allah, carshiga sharafta badan rabbigii lahaayo, naxariistaada igu naxariiso. ilaah waxaan wax kugu weydiisanayaa magacaada weyn sababtiisa inaad iigu guurisid. yaa daljalaali waalikraam, rabbigii deeqda iyo sharafta iyo weynida u saaxiibka ahayo. ducadii nebi yuunus sababteedaan ilaah wax kugu weydiisanayaa. oo maxay ahayd ducadii nebi yuunus? ilaahay baa qur-aanka ku sheegay, nebiyullaahi moxamedna waa noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. allihii irsaaqada bixinayay, deeqda badnaayo, igu irsaaq dheh guur wanaagsan naxariistaada sababteeda. waa duco qiimo badan. insha allahu tacaala gabadh yahay, guur wanaagsan oo rajaynaysid ka ugu fiican ayaad heli doontaa. ee kusoo celceli waqti walba, waqtiyada ugu fadli badnaa waqtiyadana waad joogtaa. iska sujuud kadibna iskaga ducayso adoonba salaad xiranba. iska sujuud qaabil qiblada 8 saaca habeenimo, 9 saaca habeenimo, 10 saaca habeenimo. soo toos salaadaha gadaashooda ku ducayso. naxariista ilaah iyo deeqda rabbi waa furanta. ilaahay wuxuu jecel yahay in wax la weydiisto, la tuugo, la baryo oo lagu ooyo. rabbi waa jecel yahay tabaaraka wa tacaala. ka faa'iidayso. jazaakum allahu khayran.